أرضيا قلتم واسدي ليس واسدار أرتيو أكتوا بركي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد مادة biology فصلك form 4 waxaan ku guda jirnay ardayay cutubkeeni koobaad nervous system and sense organs. waxaan soo gaarnay cashirkeena saddexaad. cashirkan saddexaad waxaan uga hadli doonaa nerve impulse. marka nerve impulse maxaa waaye? cariye dareen la nerve impulse cariye dareen cariyaha dareen. marka waxaan baranaynaa fariimaha dareen qaabka loo gudbiyo ayaan ku arki doonaa insha Allah. nerve impulse fariimaha dareen waaye. marka fariimaha dareen qaabka loo gudbinayo ayaan cashirkan ku baran doonaa. arday cashirkan marka aad dhameeno waxaad awood u yeelan doontaan insha Allah in aad sharaxdaan si faahfaahsan u sharaxdaan qaabka fariimaha dareen loo gudbiyo. sidoo kale waxaad sharixi doontaan xaalado badan, xaalado kamid ah xaaladaha uu maro fariimaha dareen markii la gudbinayo neuronka, xaalado uu maro sida xaalada loo yaqaan resting potential iyo xaalada loo yaqaano action potential. waxa dhacayo in aad sharaxdaan intaas ayaad awood u yeelan doontaan insha Allah. nerve impulse maxaa waaye? marka nerve impulse qulqul dareen ama marka cariska dareen wadka qulqulka dareenka markii la qaadayo kale maxaa waaye? marka maxaa lagu qeexi karaa? waxa waaye electrical charge traveling links of the neuron. waa qaab koronto ama qulqul koronto kaasoo ku safraya ama ku sameysmayo neuronka dushiisa ama neuronka ayuu waxa koronto ahaan ayuu wax u xiriiriyaa. marka darabka koronto jardigaas ku safraya neuronka ama ku dul sameysmayo neuronka ayaa waxaa loo yaqaanaa nerve impulse. marka cariska dareen marka la xiriirina ama qulqulka dareen ayaa waxa dhacaya marka qulqul dareen ama qulqul koronto ama danabeed ayaa ku dul sameysmayo neuronka dushiisa. waayahay marka cariyaha dareen wuxuu ka dhashaa ama uu bilowdaa stimuluska cariyaha dareenka wuxuu bilowdaa markii qofka tusaalaan taaj markii oo lagu taabto kale cariye dareena dhalanayo oo muujinayo taabashada qaabkaas ku dareemay marka cariye dareen inuu dhasho. sidoo kale dareemayaasha kale sida codka kale dhawaaq jug weyn oo kale markaa maqasho oo in aaboodo ee dhacdo kale markaas oo kale cariye dareen ayaa dhashay. marka cariye dareen wuxuu ku dhashaa mar walba oo dareen jirka uu wax dareemayo qulqul dareen ayaa dhasho. qulqul dareen ayaa dhasho cariye dareen wad ayaa dhasha. waaye cariye dareen marka cariyaha dareenka marka uu dhalanayo ama qulqulka dareenka marka uu dhalanayo xaalad waxaa jirta marka neuronka uu sameeyo laba xaaladood oo neuronka mar walba ku jira. marna waa xaalad resting lagu magacaabo oo nasiino waaye. xaalad kale oo aan baran doonaa jirto oo loo yaqaano action potential. marka restingka uu yahay marka neuronka waxba cariye dareen ma xiriirinayo. waxaa la non conducting fiber waa nerve fiber oo aanan cariye dareen xiriirinin ama qulqul dareen wadin ayaa waxaa lagu qeexaa inuu yahay resting potential. xaalad nasiino ayuu ku jiraa. marka xaaladaas waxaa la resting potential. marka resting potential marka aan dhahayno marka xaalada resting potentialka siduu neuronka u yaalaa marka maxaa dhacaya marka xaalada resting potentialka la joogo? marka resting potentialka la joogo membrane-ka xoogka neuronka wuxuu permeable ku sameeyaa oo si fudud uga baxa una soo galo curyaha loo yaqaan ionkan potassiumka ayaa permeable ah, gudaha gali kara kana bixi kara. mar walba waa uu galaa wuuna ka bixi karaa. wuxuu awood u leeyahay marka membrane-ka xoogku saan yahay in uu galo uuna ka baxo labada buu awoodi karaa potassiumka. marka xaaladaas waxaa permeable ah oo gudaha soo gali kara kana bixi kara potassiumka. marka loo fiiriyo sodium ion
sodium ionka asaga mar walbo dibadda ayaa loo saarayaa outside of the membrane axon. Axonka xoogtiisa marka la fiiriyo membrane-ka dibadda sodiumka dibadda ayaa loo saaraa, xoogka waa laga bixinaa. Axonka gudihiisa sodium ku sii juraya marka sodiumku wuxuu ku badanaa ribanaantiisa dibadda ayuu ku badanaa dibadda axoplasma. Axoplasma waxa waaye axonka markuu sidaa yahay gudihiisa qaybta gudaha waxaa loo yaqaanaa axoplasma. marka sodiumka dibadda ayuu ku badanaa marka loo fiiriyo marka axoplasma waxa waaye dareeraha ku jiro gudaha axonka gudihiisa dareeraha ku jira waxaa loo yaqaan axoplasma. marka resting potential la joogo marka gudaha uu ku yar yahay sodium oo wuxuu ku badan yahay dibadda ayuu ku badan yahay. marka gudaha ayaa ku badan potassium ayaa ku badan. potassium marka wuxuu awood u leeyahay in uu galo iyo in uu ka baxo marka la joogo xaaladda resting potentialka. marka la joogo in uu gudaha galo uu ka baxo ayuu awood u leeyahay, balse sodium bixid bis ayaa loo ogol yahay, gudaha ma galo. waaye xaaladaas markii la joogo marka ions badan oo negative charge wato ayaa waxay ku badanayaan axoplasma gudihiisa. gudaha axonka waxaa ku badan marka waxyaabo menis wata ayaa iono menis wata ayaa ku badan. xaaladaas marka maxay tahay? waa resting potential. marka unuga uuna waxba xiriirinayn cariyo dareen ama qulqul dareen u xiriirinayn, xaaladaas waxay tahay resting potential. resting potentialka xaaladaas markii la joogo marka waxaa loo yaqaanaa nerve cell membrane-ka wuxuu noqonaa polarized. ereyga polarized maxaa waaye marka? waxaa kala baxsan negative iyo positive-ka. gudaha waxaa ku badan waxyaabaha negative-ka wato ayaa gudaha ku badan, markaasaa dibaddana waxaa ku badanayso waxyaabaha positive-ka wato. marka xaaladaas marka resting potentialka la joogo polarized waaye, sidaas ayaa loo leeyahay. polarized marka maxaa keenayo? waxaa ku kala batay concentration of ions, ribanaanta walxaha ioniska ah ee dibadda iyo gudaha ku kala batay ayaa keenayo in uu noqdo nerve membrane-ki polarized. marka kala duwanaanshahaas xaaladan difference chargeska gudaha iyo dibadda membrane-ka axonka ku samaysmayso kala duwanaanshahaas dhacay marka waxay sababaysaa inuu dhaco resting potential, in uu ku dhaco membrane-kii xaalad oo resting ah. resting potential marka aan soo duuduubno waxa waaye in dibadda ku bataan waxyaabaha positive-ka wato, gaar ahaan sodium ionka in uu dibadda ku bato, halka potassium ionka iyo waxyaabo negative wato iyagana ay ku bataan gudaha. marka xaaladaas markii la joogo resting potentialka waxaa dhacdo sodium ionka in banaanka mar walbo si actively si xoog ah loogu bixiyo, dibadda loogu bixinaa. marka qaabka dibadda loogu saarayo sodiumka waxaa loo yaqaanaa sodium bump. qaab oo tuurid ayaa sodiumki looga bixiyaa oo meeshii looga tarxiilaa. waaye marka aan fiirino activity-gan ardayda waxaa la rabaa inaad labadan sawir fiirisaan, kadibna su-aalaha soo socdo aad ka shaqaysaan. marka saa hadda soo sheegnay resting potential marka uu ku jiro axonka fiiri, activity-gan waad samaynaysaa, laakiin qaybtii hore aan ku sharaxayna. axonka marka aad fiiriso waa kan axonki waa lagu weyneeyey. marka maxaa ka soo baxay? fiiri axonka dibaddiisa, xoogka dibaddiisa positive ions badan ayaa yaala. sababtana waxaa waaye sodiumkii oo banaanka loo bixiyay ayaa ugu wacan. marka dibadda waxaa ku badanayo walxaha positive-ka wato, gudaha maxaa ku jiro? marka maxaa kaaga muuqdo? waxyaabo negative wataa kaaga muuqda, negative. marka xaaladaas oo kale resting waaye. markaan oo kale polarized aa laleeyahay, laba cirif uu kala leeyahay, cirifna waa positive, cirifna waa negative. dhankan kale markaa fiirino waxaa lagugu sharaxaa qulqulka ionada. hadda saa ujeedo albaabkan oo kale sodium channel waaye. sodium channel waa kanaaladii sodiumka ay kasoo galayeen ama ay ka baxayeen. okay, kanaalka markaa fiiriso marka sodiumka uu xiran yahay, kanaalkiisa closed waaye, halka kanaalka potassium uu furan yahay. waa kaa saa ujeedo waa uu furan yahay, waa uu bixi karaa. kanaalkaana markaa fiiriso sodium keliya waxaa u furan hal wada ayaa u furan, out in uu baxo leh u furan, halka gudahana
potassium uu soo gali karo. Marka potassium wuxuu awood u leeyahay in uu baxo uuna soo galo. Si kale markaa fiiriso gudaha exoplasma qaybtan waxay noo tilmaamay exoplasma gudihiisa waaye. marka exoplasma gudihiisa qaybtan waaye inki waaye qaybta gudaha outki waa kana. marka outkan yaa ku badan markaa fiiriso marka potassium iyo sodium. waxa iska cad marka meesha in ay ka muuqdaan sodium ion oo badan. marka hadda saa u jeedo sodiumka banaanka ku badan maxaa keenaya marka sodiumka inuu banaanka ku bato? sodiumka si ku talagal ah ayaa banaanka loogu tuuraa sodium bomb ayaa lagu sameeyaa in sodiumka banaankii loo bixiyo. marka waxaa kaleeto jiro ayoono badan oo aanan la sheegin oo menis wato oo maxaa la anions ah oo meesha ku jiro gudaha ku jiro. marka xaaladan oo kale marka sodium iyo waxyaabo positive ay banaanka yaalaan gudahana ay ku badan yihiin waxyaabaha negative-ka iyo potassiumka waxaa ku magacaabeena xaaladaas resting potential. wax cariyo dareen uu xiriirinayo ma jirto. marka su'aalahan inaad ka jawaabtaan aan rabaa ardayay. su-aasha koowaad waxaa lagu dhahay chargeska ama danabyada kuwaasoo laga helo gudaha iyo dibadda neuronka maxay yihiin? chargeyadaas kala sheeg. sidoo kale waxaa isbarbar dhigtaa sodiumka iyo potassiumka ayonadooda kuwa dibadda yaala iyo kuwa gudaha ku jiro keebaa badan isbarbar dhig. macnaa labadooda intee ku kala badan yihiin mid walbo intuu ku badan yahay. su-aasha ugu dambeyso sidee sodiumka iyo potassiumka labadaba ay ku safraan oo gudaha iyo dibadda loogu kala bixiyaa? hadda sodium oo kale marka la bixinayo sidoo ku baxaa, potassiumna sidoo ku baxaa. waaye sodium bomb horaa usoo qaadato marka insha Allah. waxaa u gudbaynaa qaybta labaad ee danab xiriirinta. qaybta labaad marka cariyaha la xiriirinayo marka ama qulqulka dareen uu dhalanayo waxaa jirto waa qaybtii hore waxay ahayd wax oo qulqul dareen oo la xiriirinayo ma jirin. laakiin xaaladan hadda action potentialka qulqul dareen ayaa la xiriirinayaa. marka xaaladan see u dhacaysaa? marka waxaa dhacayo localized change. localized change maxaa waaye? isbedel kooban oo qayb ka mid ah markii uu saas yahay axonka qaybo ka mid ah axonka ayaa waxay isbedelayaan chargigooda isbedelaya. tusaale gudaha menisa ku badnaa dibaddana waxaa ku badnaa balas. markaas waxaa dhacayso meniski inuu dibadda u baxo balaskina gudaha soo galo. meniska ayaa dibadda u baxayo balaskina gudaha soo galaa. marka localized change marka waxaan dibadda gudaha ka soo galaayo waa sodium ionki. sodium ionka wuxuu wataa marka positive. meesha uu ka soo tagay marka maxay noqonaysaa? marka negative ay noqonaya. marka meelo badan uu sodium ka soo tagaa waxay noqonaya negative. marka qayb ka mid axonka isbedelayso waxay noqonaya localized change ay sameynaya. isbedel kooban ayay sameynaya. markaasaa waxaa dhacayso marka xoogka qaybtii dibadda jirtay inay soo galaan gudaha. marka qaybtaas isbedela dhacayo dibadda iyo gudaha neuronka. sidaas ayaa waxaa ku dhalanaya marka stimuluska cariyi dareen ayaa ku dhalanaya. isbedelkaas isbedel danabeedkaas dhacay ayaa waxaa dhalinayo cariyo dareen. marka xaaladda action potential lahayo xaaladaas waxaa la xiriirinayaa cariyo dareen. qulqul dareen ayaa dhashay. qulqulka dareen ugu yar cariyaha dareen ugu yar qulqul dareen dhali kara waxaa loo yaqaanaa threshold. marka thresholdiga maxaa waaye? cariyaha dareen ugu yar dhali kara. muxuu dhali karaa marka? qulqul dareen ayuu dhali karaa. threshold yaa la marka waa xaddiga ugu yar kaasaa marka waxaa la threshold. waaye marka action potential la joogo marka maxaa dhacaya? action potential markii la joogo sodium ioniski ayaa gudaha soo galaya. dibadda ayay yaaleen markii hore gudaha ayay soo galayaan. marka gudihii waxaa ku badanayo xaaladan waxyaabo positive ah ayaa ku badanaya. marka positivekaas
caligiisa dhacayo dibadda meeshii sodiumka uu kasoo tagay menis ayay noqonaysaa. xaaladaas marka waxaa loo yaqaana action potential. waa kana maxaa dhacay becomes more permeable sodium. xuubkii oo neuronka ama axonka xuubkii ku daarnaa wuxuu soo deynaa permeable uu noqonaa in uu mar walba deeyo sodium ion. marka sodium bomb temporarily cease, tuurmidii banaanka loo tuurayo sodiumka si oo kumeel gaara ayaa loo joojiyaa. marka waa la joojinayaa banaanka markii loo tuurayo sodiumka, marka gudihii ayuu soo galaa. arrintaas marka waxay sababaysaa sodiumka marka uu gudaha soo galo in uu ribanaanta sodiumka ay ku badato axoplasma gudaha axonki, in sodiumka uu ku bato ayaa dhalanaysa. marka sodium marka uu soo galo gudaha kusoo bato, arrintaas marka waxay sababaysaa in potassium ions ay dibadda u baxaan ayaa dhalanaysa. marka xaaladaas markii la joogo maxaa ka dhashay gudihii waxaa ku badanayo positiveki, ionadii positiveka watay ayaa ku badanayo. dibaddana gudaha waxaa ku badanayo ionadii positiveka watay, halka kuwa negativeka watayna ay banaanka ku badanayaan. xaaladan oo kale marka waxaa loo yaqaanaa depolarization. polarizationka ayaa caligis ku dhacay oo depolarization wuxuu ahaa positive inuu banaanka yaalo, negativena gudaha ku jiro. marka way isku qasbeen, positiveki gudaha ayuu soo galay halka negativekana banaanka uu yaala. xaaladaas oo kale depolarization ayaa loo yaqaanaa. marka isbedelkaas kooban ayaa waxaa ka dhalanayo caryihii dareen, qaabka loo gudbiyo ayaa isbedelkaas ayuu ku dhashaa. marka caryahaas dareen isbedelka depolarizationki dhacay, xuubkaas saas ayuu kusii soconayaa isbedelkii depolarizationka gudihii marka uu soo galo positiveka, negativekana banaanka uu yaalo, saasuu kusii soconaa ilaa neuronkii kale looga gudbiyo. qaabkaas ayaa marka caligiskaas ayaa waxaa lagu gudbiyaa stimuliga, qaabkaas ayaa lagu gudbiyaa. waayahay marka arrintan maxay dhalinaya in depolarizationka uu dhaco uu si nidaamsan localized oo ka dhaco neerbaha dushiisa, waxay dhalinaysaa in neerbihii ama qulqulkii dareenka uu hal dhinac u socdo, meel inuu ka bilowdo meel kalena u socdo, one way direction. macnaha dendritiska tusaale ahaan inuu qulqulkii dareenka uu kasoo bilowdo axon terminalkina uu kasii baxo. arrintaas ayaa dhalinaysa. hadda markaa fiirino marka action potentialka maxaa dhacay fiiri. action potential markuu dhacayo kiskis ayuu dhacaa. axonki waa kana waa lagu weyneeyey. maxaa dhacayo gudaha waxaa soo galaayo waxyaabihii positiveka watay, dibaddana maxaa ku batay fiiri, labada dhinacba negativeka ayaa ku batay. marka isbedelkaas wuu guurguuraa. hadda qaybtan uu ka dhacay, qaybtan weli ma gaarin, qaybtan weli ma gaarin. qaybtan marka uu ka gudbo marka waatana qaybtii sidii hore kusoo laabanaya. marka uu ka gudbay qaybtan uu joogaa. hadda qaybtii hore uu kasoo gudbay marka maxaa dhacayo sideedii hore ayaa lagu soo celinaa, polarizationkeedii ayaa lagu soo celinaa. marka xaaladaas sodiumkii ayaa maxaa la lahaa banaanka ku badanaya, iyada gudihiina negativekii ayaa ku badanaya. wuu guuray marka action potentialki kiskis qayb u soconaa. hadda waatan qaybtan wuu ka gudbay, qaybta kale ayuu u gudbay. waata qaybta kalarka buluuga wadato ayuu u gudbay. marka haddana mid kale ayaa soo bilowday oo midkan. marka qaybtan cagaarka marka waxay isku diyaarinaysaa in ay noqoto toos u noqoto polarized ay noqoto. xaaladan oo kale marka waxaa lagu magacaabaa repolarized. wuxuu dib u soo ceshanaa in polarized uu noqdo xaalada restingka ayuu isku diyaarinaa. marka xaaladaas marka maxaa dhacayo sodiumka dibadda ayaa loo bixinaa, qaybtan cagaaran waayo. mar walba waxay isku sii diyaarinaa in ay noqoto polarized. sodiumki dibadda ayaa loo bixinaa, potassiumki gudihii ayaa la soo gelinaa. sidaas ayuu ku soconaa marka qulqulkii dareenkii. marka waxaa hadda soo aragnay marka action potential oo ah in qulqulkii dareen la xiriiriyo, resting potential oo ah qulqulkii dareen asaga oonan qulqul dareen dhan uunan dhalanin oo xaalad nasiina ah ku jiro neuronkii. arday waxaa idinkaga baahan yahay inaad fiirisaan maxaa la lahaa activitygan.
marka sawirkan inaad fiirisaan oo aad isbarbar dhigtaan xaaladda restingka iyo xaaladda action potentialka ee meeshan kaaga muuqato kadibna waxaad conclusionkaagii ama xogtii aad ka ururisay aad ka fahantay ku qortaa buuggaaga halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeena layligan in aad ka shaqaysaan ayaa la rabaa su-aasha koowaad waxay leedahay nerve impulse maxaa waaye nerve impulse cariyaha dareen maxaa laga wadaa qeex sidoo kale su-aasha labaad waxaa lagaa rabaa in aad kala socdo resting potential maxaa waaye action potentialna muxuu yahay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii aan maanta uga hadalnay nerve impulsiga qulqulka dareen qaabka loo xiriiriyo waxaan soo baranay laba xaaladood neuronka uu maro xaalad uunan wax xiriirinaynin wax cariye ah uunan xiriirinaynin xaaladaasoo kale waxaa loo yaqaanaa resting potential halka xaaladda uu xiriirinayana loo yaqaano action potential kulanti dambe oo xiise leh assalaamu calaykum ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee